بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داود يركسو دوادا برنامج gaara oo ku saabsan ama aan kaga hadlayno maanta halkan aan ku falanqeyn doono fursadaha shaqo iyo xirfadda oo fursadaha shaqo ku saabsan xirfadda tuubistaha. barnaamijkan sidiisaba waxa uu ku saabsan yahay oo aan mar walba ku falanqeynaa in dhalinyarada waddanka ku nool lagu dhiirigeliyo barashada iyo ku shaqaysiga farsamada gacanta, maadaama waddankeena ay ka jiraan fursado aada u badan oo ku saabsan farsamada gacanta, balse dhalinyaradu aysan dhinacaas u badnayn oo aysan xirfadaha noocaas ah ku shaqaysanin. barnaamijkan gaarka ah waxaa iska kaashaday hay-adda Hano Academy iyo shirkadda Gollis oo sponsor ka ah, oo runtii aniga oo ka socda hay-adda Hano Academy aan in badan uga mahad celinayno shirkadda Gollis inay barnaamijkan naga caawintay sidii uu ku fuli lahaa. waxaan sidoo kale marka hore u mahad celinayaa TV-ga Sahal Cable oo isaguna barnaamijkan marar badan naga saaciday siduu ku qabsoomi lahaa. haatanna waxaan gudagalayaa barnaamijka maanta. sida aad aragtaanin waxaa barnaamijka nala jooga aadan cabdinaasir waxa uu ka mid yahay xirfadlayaasha tuubistaha ah ee ku shaqaysta farsamada tuubistaha ee ka shaqeeya magaalada Boosaaso, aadna loo yaqaano. aadan marka hore kusoo dhawo barnaamijka. inshallah alxamdulilah waa dhawaay. aadanow marka hore bal waxaad nooga warantaa aadan waa kuma iyo waxa aad ka shaqayso. alxamdulilah maasha allah, shaqadayda waxaa waaye tuubiste. in badan baan ka shaqeynayaa. waxyaabihii igu kalifay in aan shaqadan barto haddii aan kaaga sheekeeyo waa arrin xasaasi ah oo qof kasta dareemi karo. awalan aniga nin markii hore Boosaasan kusoo koray. dhalashadeeda waxaan ku dhashay caasimadda dalka Muqdisho aan ku dhashay. barbaarinteeda waxaan kusoo barbaaray Itoobiya, deegaanka Qalaafe, Shabeelland degnaa. Boosaaso waxaan soo galay waqti aada u fog baan soo galay. waxaan soo galay 15 jir ah. kadib waxaan shaqooyinkayga iska ahaayeen nin baalashla ah, gaari dhaqa ah aan iska ahay. sidaas aan aga shaqaystay waxyaabahaas. markii dambe waan iska joojiyey oo waxaan noqday qof weynaaday, reer baan yeeshtay. haddii aan reer yeeshtay waxaan ka mid noqday dhalinyarta xamaaliga ah oo sida tekada iyo muqaaradaas ka shaqeeya aan ka mid ahaa. markii dambe waxaa igu soo dhacday fikir ah in aysan i anficaynin shaqada hadda aan ku jiro iyo heerka aan taaganahay. waxaa dhacday maalin waxaan bilaabnay shaqo aada iyo aada u adag. xisaab xir baa jiray, shirkad baa xisaab xir sameynayso. waxaan bilaabnay maalin sabti aan shaqo bilaabnay. waxaan ka baxnay maalin jimcaha shaqadaa ka baxnay. markii aan go-aan ka qaatay in aan doonto farsamada gacanta ah nooc kasta oo ay noqoto. alxamdulilah nasiibkeyga ilaahay wax suu aadiyey nin hadda magaalada joogo oo isagana gacanta ka shaqeeyo oo tuubista caana oo la yaqaano. ninkii baa aan u tagay oon la hadlay oo kuuraniyo waxaan rabaa, waxaan ahay nin noocaas ah, xaasadana waa ahay, in aan wax bartana waan rabaa. anoo ujeeda dhibaatooyinka meesha iga muuqda in aysan isbixinaynin shaqada xamaaliga oon ku jiro iyo shaqo la-aanta ka jirtay markaas meesha, iyo fursad si aan ku abuuri lahaa ama aniga iyo reerkayga isu kaafin lahayn. kadib marka ninkii baa codsiga u dhiibtay, waa iga aqbalay. wuxuu yidhi niyo alxamdulilaahi insha allah hadduu ilaahay raalli ka ahaado hadda shaqooyin ma hayno, baas insha allah hadday wax soo baxaan soo wargelinayaa. waa sii waday dadaalkaygii. nin kale asagana wargeli, asagana hadda xamar jiro oo ilaa haddeerto alxaliilno saaxiibkii ah, isagana engineer tuubista ah. iyo labadii nina maasha allah aad ii garab qabtay aniga. shaqadiina ii bilaabay. ninkii aan la hadlay nasiibkiina wuxuu noqday inaan guri dabaqa markii nasiib u yeeshanay aan ka shaqo bilaabno. tuubistaad ku shaqo bilowday? oo tuubista ku shaqo bilaabay. shaqaalada sidii aan kaga mid noqdo. anoo weliba u sheegtay inaan ahay nin xaasle ah rabo inaan wax barto oo niyo dee qof xaasle waa ogtahay in laga rabo biil iyo wax laga rabo ogsoon tahay. u sheegtay in wixii iga caawin kara iga caawiyo uusan ardayaan ii fiirnin.
meeshii aninkii iskala jaan qaadnay shaqadiina waxay noqotay inaan shaqadeydii ka bilaabo meel aad iyo aad xirfadeeda u sarreyso oo guri dabaq ah aan ka shaqo bilaabo markiigii hore. sidaasaad marka aadan horta tuubista ku noqotay wixii ka dambeeyey oo aad ku baratay weye baan u gartay soo ma taasina waxay ahayd qisada aadan sida uu tuubistaha ku noqday iyo wixii ku kalifay runtii qisadaas oo haddana ka muuqato in uu marka hore dhibaato iyo shaqo la-aan nolosha ah uu soo maray markii dambena markii aad tuubistaha aad noqotay bay nolosha kuu degtay weye soo ma oo runtii xirfad baad yeelatay aad ku shaqaysato oo maanta noloshaadii ay maaragtay nolol quruxsan ku tahay soo ma si wacan alxamdulilah aad iyo aad noloshaad u fiican tahay qof markii asaga shaqaysanayo iyo qof markuu shaqaysanayo labay kala tahay maanta haddii aan hal shaqo qabto way kaafisaa taasi marka hore waxay ahayd shaqadan mid aan waxba kaafinayna ahayd oo aana yacni caddayn maalin walba wixii aad qabanaysa ma aada garanayn iyo meel aad u raadsato laakiin hadda xirfad baad leedahay aad taqaan maalin walba waxaad ku shaqaysan lahayd aad garanayso exactly okay aadan waxaad nooga warantaa sidaad ku baratay iyo intay kugu qaadatay farsamada tuubistaha sidee lagu baran karaa ma in iskuol qofku uu aado oo ama akaademiyo iyo maxaan ku yidhahdaa college ka soo bartoba mise qof sidaadoo kaleeto shaqada yaqaana hadduu la shaqeeyo qofku waa ka baran karaa muddo intee la eg baase lagu baran karaa adiguna aad ku baratay laba option horta waa lagu baran karaa qofka inuu ka barta argey meel wax lagu baro dugsiga sidoo kaleente dugsiga farsamada gacanta kale waa ku baran karaa qofka inuu qof practical la shaqo bilaabana wuu ku baran karaa marka sida ugu fiican waa in qofka practical gacanta uu ka shaqeeyo oo qof markaasi shaqada yaqaano ula shaqeeyo sidii qof engineer oo shaqeeyo walwadeen ah oo shaqooyinka aad la qabto sababta waxaa kuu fududaanayso guri kasta ood ka shaqaynaysid suuli kasta oo ka shaqaynaysid meel kasta oo tubo marinaysid in aad adiga markaasi aad si practical u baratid oo aad u baratid si muuqaal ah qofka markii matal ama sabuur looga sharxo ama markuu gacanta ku hayo fiican tahay sababtoo markaasi waxaa ku dhacayo macnaha iyo markay wixii ficilkiisa la sameynayo. Okay muddo intee la eg bay qofka ku qaadanaysaa inuu barto tuubistaha? Tuubistaha waa shaqo aad u fudud oo qofka haddii uu u dhowr adeego muddo gaaban ku baran karo laakiin waxaa la rabaa qofkii inuu dulqaad sameeyo shaqada sideeda banaanba waxaa waaye waa barasho iyo aruuris iyo dibka dhisid marka anigu naf ahaanteyda shaqadan barashadeeda waxay ugu qaadatay muddo sanad bar ay ugu qaadatay. Okay muddada ay sanadka ay barkaa laakiin waxa ay ku baxaysay farsamada waxbaa khaldaysay waxbaa saxaysay yacni qof shaqeeyo oo baad ahayd waxaad ka hadlaysaa baan u gartay sanadii barka muddadaa dheer waa shaqaynaysay laakiin gacantaadu ma ay fadhiin macnaha sida qof khabiira ay u fadhido laakiin farsamadan maadaama ay tahay ama aad ku sheegto farsamo fudud aniga sida xataa ila muuqato waan ka hadli doonaa farsamo fudud qofku waa lagu tusin karaa muddo bil iyo 2 bilood ah laakiin dabcan farsamo walba oo iyo cilmi walba qofku barto markuu ku shaqeynayo practical khibradda ayaa waqti qaadanaysa taasaad ula jeedaa soo ma okay waxaad nooga warantaa aadanow habka loo qabto shaqadani ma shaqo adag baa ma shaqo dhib badan baa ma shaqo stressful oo maaragtay qofka headache madaxa xanuujinayso oo aan sahlanayn baa qalabka la adeegsado horta intaan anigu arkay tuubistayaasha ka shaqeynaya guryaha tuubooyinka la gelinayo ama kuwa xumaada ama guri cusub oo tuubo la gelinayo qalabka ku shaqaysataan oo wadataan ma badno qalab yar oo kooban oo tuubooyinka lagu furfuro ama lagu xirxiro weeyaan marka laba qaybood baan u kala saaraynaa qaybta koowaad waxa weeye guri cusub markaad engineer tahay ama qof farsamo yaqaan oo xirfadan tuubistaha ku shaqeysta in guri cusub oo la dhisaayo ama dabaq ha ahaado ama villa ha ahaado lagu yiraahdo oo inta qadaraaska aad qaadatay tuubooyinka geli oo dabcan sidii korontadii waayarada oo kale in tuubooyinka dhan la isku xiro iyo centralki meesha maamulaysa iyo qaybo u qaybsamayeen waxa dhan baad sameynaysaa taas iyo mid kale oo waxa ay tahay sida caadiga guriga tuubo ka xumaato oo tuubo leh oo lagu nool yahay oo socday oo noloshiisa soconaysay oo tuubo meel ka jabta ama ka xumaato kala cilad bixi la yiraahdo taas waa wax yar oo kooban oo cilad bixin u baahan taa waa u tageynaa marka laakiin midda hore oo ku saabsan design cusub iyo guri cusub inaad tuubo aad geliso
taa shaqadeeda sida loo qabanayo iyo intay qaadanayso iyo hawshaas nooga sheekay bal. niyow shaqadaas horta way fududahay, qofka hadduusan garayn waa ku cuslaanaysaa. muhiim qofka waxaa ah shaqadan marka hore inuu soo barto oo soo xifdiyo. magaalada dad badanaa ku jiro ka shaqeeya shaqooyinkaas, saas aan aqoontaas aan u lahayn. qofka haddii aragtay shaqada ay kusoo noqnoqonayso ama ay shaqadii ku adag tahay, oo qofka markiisii horeba shaqada aan soo baranin. shaqada marka waxaa keenaysa qofka inay dhibto aqoonteeda fulka ma lahan. qofka hadduu shaqada yaqaana way u fududaanaysaa. siinberi markuu shaqada qabanayo, shaqada way fududahay qabashadeeda, had kasta si ay kugu imaato way fududahay. markii guriga bilaaw yahay iyo markii guriga dayactadayna waa kala fududahay. waxaa weeye markii guriga bilaaw yahay way adag tahay, waxyaaba badan baa jiro. shub baa la jeexayaa, bulkeeti guriga naftiisa la jeexayaa, hawshiisa waa iska badan tahay. markii guriga cusub yahay, iyada taas waxay tahay waa guri cusub oo dee waa qasbiin inuu markaas dadaal badan iyo waqti badan iyo juhdi badan kaa galo. kan dayactirka ah de waa mid hawshiisa hore loo soo qabtay. inta badan waxyaabaha laga qabtaa waxay tahay tuubada afka hore inta banaanka taal unba inta badan xeelada ka imaataa. iyo dee marka guryaha inta badan laga xagay baxo waa dareemi kartaa oo guryaha dhibaatooyin iyo cusbid iyo milix tawasad gasho, marka unba iyadana dayactir ku yimaadaan guryaha. okay, waxaad nooga warantaa aadanow fursadaha ka jira suuqa ama magaalada ee tuubistaha. khibradaada tusaale ahaan hadda saan ogahay adiga maalin walba waa shaqaysaa, subax walba iyo maalin walba aad soo kacdo shaqooyin baa ku yaala aada soo ma jirto ama weeye dhahay maalin aad baaga muudayso. ha isugu jirto inaad guri cusub tuubooyin gelinayso ama inaad guri horay u jiray aad dayactirayso. fursadahaas suuqa ka jira ee tuubistaha nooga war. alxamdulilah, horta waxaa waaye shaqada sideeda banaanba waa iska caraf qadar alla wixii ilaahay kuu qoro maantay qabanaysaa. laakiin isbuucii markaan isku xisaabino aday 4 maalin 5 maalin waa shaqaynaa. inteena badan alxamdulilah waa shaqaynaa. kulo shaqada hadda waqtigii hadda taagan yahay waa waqtigii magaalada lagu soo noqonayo iyo aad u fiican tahay. waa ayaantaan aad u badan tahay. waa ayaantaan aad u badan tahay oo waqtigii dayactirka badan haa marka si loo fiiriyo dayactirka guriyihii xagaaga cusbada waa dareemaya kulaylka tuubooyinka jabiyey waxyaabahaas inta badan la qabta hadeer. waxaa waaye isbuuci haddii shaqaynin maalin haddaad shaqaynin 3 maalin 2 maalin 4 maalin isbuuci 5 maalin 4 maalin waa shaqaynaysaa. maasha Allah. marka income-ka aad ka sameynaysid dhaqaale ahaana waa wax aad ku qanacsan tahay alxamdulilah aad u fiican soo maaha. waxyaaba aad ku dhiirigelin lahayd in dadka aan hadda tuubistanimada dhalinyarada shaqalaanta ee darbiyada fadhiya inay bartaan oo ku shaqaystaan. waa muhiimada meesha taalo qofku inuu raadiyo shaqo uu ku shaqaysto xirfad leh, korotista aado tuubista aado shaqo xirfad gacanta ah oo qof ku shaqaysto magaalada ku joogo inuu barto kula taliya ninka dhalinyarka ah oo sideedoo kale ah. waayo waa waxaan soo arkay qofka hadduusan mar shaqo garanaynin xirfad ah wax uu yahay ma jirto. okay, aadanow marka laba qaybood aan u kala saaray. tusaale ahaan qandaraas guri cusub markii aad qaadato tuubo inaad geliso, intee lacag la-eg baa qofka tuubistaha ama aad ku qaadataan guriga cusub oo kale markaad gelinayso tuubooyin? guriga cusub mar waxaa waaye qofkii lahaaya la heshiinaysaa. sax. marna adiga waxaa waaye qof engineer baa ku wato oo guriga shaqadiisa wato. adigana engineerka aad la shaqaysaa oo aad ka hooseysaa wey. adiga haa marka adiga isaga qandaraaska ku sii siinayo. isaga qandaraaska ku siinaayo. markaas qiimaha waxa adiga aad markaas ku qanacsan tahay shaqada ku galaysid buu qof ku galaa oo yiraahdo shaqadan way kugu filantaa waa kaga bixi kartaa. dee qofkiisa u fiirinayso kaga bixi karne waa iska daalaasin haddii aad shaqadan iyo lacagta isku tahay mid isku fadhiso oo adiga wax kaaga soo baxayin shaqadana ku dhamaanayso qofka ku shaqo gali karaa. waa sax, laakiin sida caadiga yani figurka waxaan rabnaa waxay tahay inaan ogaano figurka yani ama qiimaha guryaha markii cusub yihiin lagu gelinayo tuubada waa imis qandaraaska oo tuubistu qaato. guriga filada ah waxaa waaye shaqada lagu qabto 250. okay, tuubooyinkii iyagaa soo gatay adigu waa gelinta kaliya gacantii. qofka wixiisa asaa keensanayo adigu gacantaada. okay, waqti intee la-eg bay markaa kugu qaadanaysaa guriga inaad geliso? maalin 2 maalmood? shaqada waxay kugu qaadaysaa 3 maalmood ay kugu qaadaysaa hadduu gurigu diyaar yahay. haddii soo noqodkiisa badan yahay ilaa 5 maalin 6 maalin ku gaarsiinaysaa. okay, hataa 4-5 maalmood wax xun maaha inaad $250 guri tuubooyin aad isku xirxirayso kaliya shaqadeedu dhib badnayn aad samaynayso. yani waa dhaqaale fiican waaye oo runtii lagu qaadan karo. marka qof mise 2 mise 3 mise shaqaale u baahan tahay mesela guriga cusub markaad tuubada gelinayso inay kula shaqeeyaan mise adiga keligaaba ku filan shaqada?
kaya kuma filnaan kartid haddii adiga kulli leedahay waxaa adiga kugu ekaadaan ciidanana wax kula qaybsan kartaa isku dhabarjin kartaa laakiin shaqada waxay ku qurux badan tahay in laba qof kula shaqeyso si degdeg ku dhaco loo qabto laakiin taas waxay noqonaysaa dadkaas dad shaqaalaha adigu aad keensato ka hoos shaqeeya iyagana waxooda aad siinaysaa joornaatada laakiin injineerkii iyo qandaraaskii hawsh qaadanaya adiga ka faa'iidada inteeda badneyd okay very good tan marka aan isleeyahay iyaduna waa shaqo badan baa runtii ku jidha waa dayactirka guryaha oo dabcan qofku marka tuubiista la yaqaano xirfadla uu yahay wuxuu leeyahay dad yaqaan oo badan oo guryo oo soo wacaya oo kaala tuubbaa naga jabtay hadda aniga maalin dhaweyto muddo asbuuc ka hora guriga oo markii lasoo noqonaya hadda aan dayactirayay tuubbo yar oo afkeeda la goynayo labada dhinac laga goynayo mid kale lagu rakibayo ayaa nin tuubista ah wuxuu iga qaatay $7 runtii waa lacag fiican qofka marka masalan waxaan isleeyahay haddii uu maalintii 3 guri maro min $7 oo $12 ama $10 $30 maanta boosaaso qof jooga ama Soomaaliya oo maalintii $30 gurigiisa kula hoyan kara runtii waa lacag aad u fiican waa biilkiisii noloshiisii istiraxiisii yaalkii wixii dhan waa ka badan tahay mana jirto inta badan dadku saa uma ogo oo waxaad arkaysaa suuqyada fadhiyaanin maxaa kuwa digriyo sita oo shahaadooyin jaamacadeed soo qaatay ayaa shaqo la'aan sababtoo wuxuu sugaa shaqaheeda goormay soo baxaysaa shaqo dawladeed goormay soo baxaysaa waxa adduunka ugu muhiimsan oo hadda la isku qiimeeyo qofka uuna ku shaqaystaa waa xirfadda wax ka qiimo badan ma jiraan sababtoo ah maxaa taqaan oo aan qaban ka dhaco gacnaha aad ka qaban ka dhaco ama ma ha ahaato mid teknolojiyad iyo IT iyo engineering aad leedahay ama ha ahaato mid kaleeto oo waxay tahay maxaa sida farsamooyinkan kaleeto oo tuubista iyo korontista iyo kuwa kaleeto fara badan okay taas iyada nooga waran maalintii maxaad is leedahay runtii horta qofku wuxuu helay waa calaf waa saa sheegtay waa run laakiin guryaha dayactirkooda iyagana fursadaha ka jiro oo maalintii 2-3 guri waa madhaa soo maaha marka qaar siday ugu soo marto waaye mar labaa qabanaysaa mar saddexaa qabanaysaa mar halaa qabanaysaa shaqadaas waxay tahay hadba siday kugu soo aadiyo baa loo qabtaa haddii maanta 3 guri kuu soo boodo adigana waxaa samaynaysaa qof kaleento oo sidaadoo kaleeto professional baa qaybta kale u dirsanaysaa adna qaybtaada ka shaqaynaysaa iskaashanaysaa raggiina yani farsamada yaqaana xataa qofku shaqo dheeraada hadduu helo saaxiibkiisu wacaya si shaqadaas maanta lagu guuleysto qarshaadkan usoo xaroodaan exactly okay aadanow marka haddeer waxaan fursad kuu siinayaa in aad tala soo jeedin ama maxaad kula talin lahayd dhalinyaradan shaqo la'aanta ah ee derbiyada fadhiya ee aan doonayn ama aan ogeyn oon ku baraarugsanayn farsamada gacanta inay fursad ballaaran ay ka jirto oo ay noloshooda kula soo bixi karaan oo ay nolol fiican oo comfortable ah iyaga reerkooda iyo carruurtooda iyo caa'iladooda iyo familieskooda ay ku noolaan karaan ay ka heli karaan maxaa ku dhiirigelin lahayd inay shaqadan bartaan niyo barnaamijka bilaagiisana aan kaga hadlay taas qofku markuu culays dareemo buu wax arkaa marka dhalinyarta anigu jiilkii waxaan kula talin lahaa qofkii hadda xirfad bartay xirfadiis ku shaqaysto waaba ku shaqaystaa laakiin cambaran iyo kuwa hadda naga dambeeyo inay jaaniskooda ka faa'iidaystaan intuusan culays soo fuulin ay shaqo bartaan xirfad ah ay ku shaqaystaan magaalada ay kaga shaqaystaan magaalada waxaa waaye magaalo weyn waaye alxamdulilah ilaaha mahadle ummaddana waxaa waaye sidii horanta ma ahan marka hore waxaa jira guryo badan oo iska cawshada ah hadda magaalada waxay noqotay magaalo inta badan guryaheeda ay toobada kuga jiraan oo guryo casri la dhisanayo daaqay la dhisanayo shaqada marka waxaa waa iska badan tahay oo maanta sidii hore waddanka ma ahan waxaan kula talinayaa inay dhalinyartaas ay shaqadaas farsamada gacanta ay culayska saaraan oo qofka noloshiisa wuxuu ku maareyn lahaa ka fikir intuu jaanis gaasto intuusan culays fuulin exactly aadan waxa aad ka hadlayso dhalinyarada marka aad arrintaa ku guubaabinayso ama aad u soo jeedinayso inay bartaan farsamada gacanta waxa ay tusaale u tahay ama tusaysaa aadan oo ah qof guulaystay oo successful oo maanta tuubistanimo ku shaqaysta oo isagu soo tijaabiyo arkay oo nolol iyo qurux ka sameeyey farsamadaas tuubistanimada weeyaan waxay ka turjumaysaa u sheegayso tusayso waa caddayn soo ma adiga sheekadaada noloshaada iyo sida aad uga faa'iiday
tuubiistanimada weeye. aadan waxa uu idiin soo jeedinayo o idin leeyahay war majaalkaas ama dhinacaas tuubiistanimada iyo farsamada gacanta anaa ku faa'iiday oo maanta qurux ku leh oo nolol ku leh oo sharaf ku leh, waxa weeyaan idinkuna ka faa'iidaysta dhalinyaro intaa derbiyada aada fadhin lahaydeen. haatan waxaan u nimi aadanow gunaanadkii barnaamijka. aadan diyaar ma u tahay sida aan anaguba diyaar ugu nahay haddaan nahay Hana Academy in ciddii rabta inay barato farsamada gacanta ee tuubiistaha in aad ka caawinto, hadday noqon lahayd in ay kula shaqayso oo aada badho, iyo haddii ay noqon lahayd inaa annaga iyo adiga iyo ciddi kale oo ama dowlad ama hay-ad naka caawin kadhaba aan iska kaashano sidii loo heli lahaa xarun iyo meel markaa adiga iyo ragga kula mid farsamada aada dhalinyarada ku bari lahaydeen. diyaar ma u tahay taas? taa waa rajeynayaa. haddaba alxamdulilah dhalinyar baa ila shaqayso oo shaqada gacanta ayaan dhinacii ka bara. qofka markuu shaqeynaya qof wuxuu leeyahay hoos joogo ah, ama asaga keensada ama asaga u yimaaday, sida anigaba qofka aan ugu imid hore. iyadana waa rajeynayaa in aan sidan dad aniga saan lay soo saaray in aan dad soo saara. haddana waa soo saara 2 qof baan soo saara ila shaqayso oo maanta qofkaan idhaahdo shaqadaas soo qabso si madax bannaan soo shaqaysan karo, oon aga baqaynin shaqadaas inay kusoo noqoto ama alaabka ay ku yimaado. iyadana haddii jans aan u helo in ay hay'ada garab qabato oo maanta dee dad aan u noqdo macallin u noqdo ama gacan aan ku baro ama si balaan u barayo aan nasib u yeeshto, taana insha allah iyadana waa rajeynayaa. aada iyo aad baa u mahadsantay aadan. annaguna waa ku faraxsannahay in aan arrinta noocaas oo ciddii rabta inay barto aan ka wada shaqayno. aadan horta imisa sana hadda Boosaaso aad ka shaqaynaysa oo tuubiistanimo aad ku shaqaynaysaa? shaqadan tuubiista waxaan ku shaqaynayaa muddo 12 sano aan ku shaqaynayaa. muddo 12 sano okay, very good. waa waqti runtii aada u dheer. nin reer Boosaaso baa tahay maasha allah. magaaladan iyo maaragtay nidaamkeeda iyo nolosheeda iyo shaqadeedaba muddo dheer kusoo jiray runtii aada u yaqaan kana warhaya. mudanayaal marwooyin, aadan waa sidaad u jeedeen xirfadle ku shaqaysta tuubiistaha muddo 12 sano ana Boosaaso kasoo shaqaynayay. runtii ciddii rabta inay aqoontiisa ka faa'iidaysato ama ay tuubiistanimada shaqo ku qaybsato, aadan waa ay la xiriiri kartaa. sidoo kaleeto dhalinyarada doonaya inay bartaanin xirfadda tuubiistaha, aadan wuxuu diyaar u yahay inuu ka caawino. annaguna waxaanu diyaar u nahay inaan isku xirki way nala soo xiriiri karaan Hana Academy Boosaaso office. waan ku xiraynaa aadan si uu u baro. waxaan sidoo kale insha allah isku dayi doonaa oon dadaal badan gelin doonaa sidii aan u samayn lahayn isku xir iyo fursaddii ay ku baran lahayn dhalinyarada loo abuuri lahaa iyo goobtii iyo wixii iyo insha allah wixii mustaqbalka waa jecelahay arrintaas qorshaha waa noogu jirdhaa. haatanna gabagabadii barnaamijka waxaan kusoo gunaanadayaa. waxaan mar labaad u mahad celinayaa shirkadda isgaarsiinta geyga Soomaaliyeed ee Golis oo runtii barnaamijkan sponsortay oo naga caawintay inuu TV-ga Sahal Cable nooga qabsoomo. 3 barnaamijyo hore oo doodo iyo waraysiyo ku saabsan shaqo abuurka iyo fursadaha shaqada farsamada gacanta ee ka jira Puntland iyo Soomaaliya aan uga hadlaynay ayaa hore noogu qabsoomay. kan waa barnaamijka afraad. waxaa jiri doona barnaamijyo kale oo iyaguna bixi doona oo kan noogu xigi doona. dhammaan barnaamijyadaasna waxay ku saabsanaan doonaan in barnaamijkan sidiisa wuxuu ku saabsan yahay ama hadafkiisu yahay dhiirigelin iyo guubaabin iyo wacyigelin dhalinyarada shaqo la'aanta ah, kuwa waxbartay iyo kuwa aan waxbaranba, in lagu jiheeyo oo loo jiheeyo halka ay fursadaha waddanku ay jiraanin, maadaama fursadaha aqoonta shahaadada iyo artiga waxaa la yidhaahdo ee dadku barteen hadda ay fursadahaas ku yar yihiin suuqa. waxaa badan oo aysan dhalinyaradu ogeyn fursadaha farsamada gacanta. waxaa jirta magaalo aan xagaagii tegey oon u xagaabaxo, magaalo dhan oo weyn oo degmo ah oo population badan leh, ayaa waxaan ku arkay cilad ama dhibaato ka jidha waxay tahay korontiista la-aan, saasoo kale tuubista la-aan. magaalada dhan oo dadka faraha badan degmada ay ku nool yihiin 2 nin ayaa korontiista ka ah. bal hadda dhegeyso, waa 2 nin. 2 nin baa saf loogu jiraa. haddii aad nal yar kaa xumaado meel korontada aad u baahato, waxay noqonaysaa inay kugu qaadato 2 beri iyo inaad sugto ama 24 hour iyo wax ka badan, sababtoo ah waa mashquul. magaalo ay ku nool yihiin ilaa 30,000 40,000 oo qof oo 2 tuubista ama 2 korontiista ay joogaan, waa dareemaysaa. dadkina dhib baa haysta, iyagiina dhib baa haysto, waxa way shaqadii baa ka tan badatay.
laakiin nasiib darrada jidhaa waxa ay tahay nasiib darrada jidhaa waxay tahay dhalinyaradii magaalada u dhashay darbiyaday fadhiyaan suuqay fadhiyaan shaxaad way shaxatamayaan iyagoo wax bartay iyagoo wax baranba shaqo la'aan baa haysa waxay ku leeyihiin waddanku shaqo ma leh magaaladoodina laba nin kaliya waxay ka yihiin tuubista ama korotisto magaalada dhan raadinaysa telefoon baa u markaas adoonsiga iyo dhibka iyo ahaanada ay ku hayaan dadka aadan malayn sababtoo ah competition ma jiro tartan male marketka cid kula tartantaa ma jirto waa labadooda kaliya dhalinyaradana suuqay fadhiyaan oo darbiyaday fadhiyaan shaqo la'aan ay ku yihiin marka dhalinyaroy qofku bini aadanka ah waxa muhiima maalintii inuu shaqaysto soma xirfad inuu shaqaysto bariiskiisa soo dhacso shaqo waa sharaf aniga hadda maalinta aan seexdaana shaqo lahayn iyo maalinta shaqo leeyahay markaan soo daalo duhurka gurigeyga imaado oo qadeeyo anoo daalan habbi baan ku seexdaa sababtoo nafsadeeda waxay dareemaysaa maanta waa soo shaqaystaa shaqanaad shaqadu waxay doontaa ha ahaatee weliba farsamada gacanta iyo shaqooyin wanaagsan oo runtii waxaan ku idhaahdaay aan dhib badnayn badankood qofkuna maalintii uu bariiskiisa kusoo dhacsan karo marka waddanka wixii ka jira laga qabsadaa laguna shaqaystaa muhiimaddu waa taas wey laakiin kanaan rabaa itaay baan rabaa suug baan rabaa xildhibaan baan rabaa agaasin baan rabaa wasiir baan rabaa hay-ad baan rabaa macno ma samaynayso adiguna aad gurigaagii fadhidood waxaa cunto aada haysan shaxatamayso waxaa qiimo leh oo sharaf leh qofku marka uu shaqaysto shaqooyinka waa ay jiraan halka ay jiraan wey meeshaan rabno inaan u jihayno dhalinyarada intaasaan kusoo gabagabaynaya tv-ga sahal cable aad baan ugu mahad celinayaa mar labaad mar saddexaad mar afraad iyo shirkadda golisba annagoo ah bahdahaano academy sahal cable iyo golisba mahad celin ballaaran baan usoo jeedinayna aadan adigana aad baan kugu mahad celinaya fursadda aad maanta noo siisay inaad nooga xog waranto tuubiistaha iyo sida loo qabto iyo loo barto iyo fursadaha shaqo ee suuqa ka jira waa mahadsantihiin mudanayaal iyo marwooyin kulan dambe ayaa noo ballanaysa ma ogtahay macmil in akoonka sayfin akoon oo ka mid ah akoomada salaam banki aad dhigan karto lacagaha adigoo jooga gurigaaga goobtaada shaqada iyo meel kastaba waxaadna ku dhigan kartaa adigoo maraya habkan fudud fadlan garaac xidig 886 xidig akoonkaaga bangiga xidig lacagta 4 gees sayfin akoon waa koonto dhigaal ah oo macmiilku ku keedsan karo lacagihiisa si fudud waxaadna kala bixi kartaa adigoo taga xarumaha bangiga oo keliya ku keedso lacagahaaga koontada dhigaal ee bangiga salaam haddii aad safar aad tahay dooro bas adigoo kasii dooranaya goobin faroom oo u taagan magaalada aad ka tegaysid taabo goobintu oo u taagan magaalada aad tegaysid taariikhda aad baxayso dooro shirkadda aad ku safraysid kasii dooro kursiga aad jeceshahay inaad ku safarto geli magacaaga oo saddexan taabo lacag bixinta sug inta uu kugu soo taagayo lacagta tigidhkaaga geli biinka saadkaaga si aad u jarato tigidh